nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay hebel uu dhintay haddaad maqashana noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiraduna way bilaabantaa iyadu dhammaad ma leh haddaad maqasho hebel uu dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiradii weyna ka badnayd baana u bilaabantay hebel baa go-ay inaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa daday adduunye muxuu ka tegey caalamka samadoo dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey inaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go-ay muxuu ka tegey laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa ka inoo sheegay lahaa meydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anuwan liibaanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku wadaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn hadday labadaa la maqashiin lahaana dadku ismay aaseena way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiyo oo sheekaysanaya laanna saxaabadu bashar bay haayeen cabdulaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen haa way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen sida innaku aan u shaqaysanayeen sida innaku reere iyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weynayd aakhirada ayaa ku weynayd maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fainnahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay
marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu Allahu alladhina aamanu bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil aakhirah wa yawma yaqumu al-ashhad ilaahay tabaaraka wa ta'ala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshin doono walaalayaal ilaahayna hay nagu sugo allah hay nagu sugo allahna inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqa ku muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arko adduunka inta la joogo jirhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacada salaada iyo manfacada thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaat wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada imaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada inoo muuqato aakhira inooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalo dhinto laqad kunta fii ghaflatin min hada fakashafna canka ghidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu waannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahda maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyey haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaaba meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culummadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulghayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu li aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dul yaalloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabuu markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan
ciyaalkiiba dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer Jabuutina waxay yidhaahdaan letaraadkii baan ku noolaa letaraadkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annaku الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وإن قفك قرطاع دودا هذا استعمال ليسو شفاء الله مسعته شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان كاقي مهرد هذا يسوق كاغن وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكائمنا يا وإن أتقرت ربك والله ويان معبودك وإلهي ويان كعبادة متيستي وإلهي ويان كبرية متيستي وإلهي ويان كالرجاء متيستي وإلهي ويان كعبسة متيستي وإلهي ويان كليجي رجاء كليجي كعبصو كليجي بريو بايدا كليجي وشهو ربك والله دين تيدنا الإسلام رقم كيجو إسلام وحكي لعنكم الرقم وحكي لما آمن سني دين بانو نولهي دين بان برانيا دين بان كشقينيا قفك دين بان كجعلانيا دين لأنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعندما ما يسترتب النبي عليه الصلاة والسلام وأين نقطة قف لله أنه لو تاريخ الصحابة يقول على سيرة علي بن أبي طالب ننبايد هل من مبارز وحل معركة مسلمين تلو حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري ننكي أقوي تالوينا قال هذا أيا صودع يري هل من مبارز أيا معركة يقول صودع أيا علي بأودعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ننكي انتو قبتيبو لقدي مركو سيفتي قاتو يري قلي مركو السنين علي بن أبي طالب وننكا كورفا ديبو قنوف وجه لغا طفي مركاسو علي قنوفا لغو طفي وجه لغا طفي قال كينا دولكو جيفا علينا سيفتي بو هايستا قنوف با لغو طفي علي وصريا وككعي علي صحابتي waxay ku yiraahdeen ya Ali maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimana ninkan diinna waad ula dagaalameysay adigana qandhuuf kugu tufee war marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayay hada cara ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yiri lillahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban cidaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan cidaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkan dhageysan ilaahay dartii baan u dhageysan waa inaad noqoto qof diiniya oo diintu ay xakameynayso si su'aasha qabriga kugu dhib yaraato tiraado aniga diintaydu waa islaam markaas nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam baa la horkeeni oo la oran doona maxaad u taqaanay shakhsigan markaas uu muuminkii leeyahay waa nabigeeygi Muhammad alayhi salatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay la oran doona an sadaqa abdi adoonkaygi run buu sheegay afrishuhu min aljanna firash jannada ka soo qaado u gogla walbisuhu min aljanna dar jannada ka soo qaado u xidha waftahu lahu baban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halka ka daawaday baa la oranaya dulkaad ku celisay meydka dhulkan ku aasnay minha khalaqnaakum wa fiha nu'iidukum halkaad ku aasay waa dhulka dhexdiisa weeyaan إن كتاب الأبرار لفي عليين جندنا وفوق 7 سماوات هل كاس قفك مؤمنكم جندي سيكدا ونيا سدا إنكم بآلة دنيا رأيمك أنا سنة موبايل كإجابة أتكو حيستيد قفك الدنيا هل كوجودن بيجوجا مقالي مقال هل كأدو قد داونيسو قارة أمريكا قفك جوجي أيا لديكو هل كجوجا مقالي مقال أتكو وده هل ليسان مؤمنك قبرك دحدي سنة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيا إنه شيء يري قبرك دحديدا داقل لوغا فريا halka abu ka arkaya jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul cayntiisa markaas la oran doona iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanaya laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto an-nawmu akhul maut
وأهل الجنة لا ينامون بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام جيريدو دمشدو هرددو وجيريدو ولا شد أهل الجنة جنة هذا قالنا ما صيحنا يا أبو رسولك يدي الدنيا مالنتين وظفوفي ومعاش كسب حلال كسب شقيسن واد عباديسن واد سود دالي هبينكي بعد يرسيحن سدالك لغاغا بيهيو أهل الجنة محين لا سيحنين وحي لا سيحنين واكو شيغيا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين با إلهي يري أهل الجنة جنة هدي أي قلان جنة دحديدا wax tacab oo daalo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeen kuwa ka baxaya ma marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyada ku qabtaan waa la hordhigaya marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo ma jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكي إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه يقول شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا دان نلقى كالصبح دونان دان حق إلهي بالله سؤرين دونا مرقاس قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي يحي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيي وان جيفني وان هردني هردada maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaamada sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay rasuulshiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yawm alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya نولش أدويدو وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بايل هيري آية الليل آية النهار نولش أدويد عن كل نول هاي وماليني هبين مالنتين واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدين لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر نعم الدويدا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي يقول قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمنكينا بربرها جنة كميدا لوغا دغيا قال كينا waxa looga dhigaya godgodod kanaarta kamida looga dhigaya dina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam alayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta ورمها hayaan way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo bay qabriga ka soo bixi doonaan laysa ala ahli la ilaha illa allah wahshatun fi quburihim wala hasratun fi nushurihim وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها dadka adduunka dusheeda la ilaaha illa allah ehelkeega noqda allah inaga dhigo qabriga markay galaan ku kaliyoobi maayaan maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug galiya arki maayaan waxaad moodaa buu nabigu inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdulillaahi alladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinaa naxdintii murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaan ka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara jooga waa yowm qur-aanka yowm buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a yowma yanduru almar'u maa qaddamat yadaah
يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة habeen ma maqlaysid habeen ka doondoon waa kaas qiyaamaha markuu ilaahay ka warramayo waa maalin weeyaan habeen male waa maalin kaliya wa fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sanah yawma idin tu'radun la takhfa minkum khafiyah yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yawma ilaahay tabaaraka wa ta'ala yawmkaasina quraanka ilaahay noogu sheegay waa 50 sanadood ibn Abbas radiyallahu anhuma مفسر القرآن كوحو كفسروا يدي أفرتن كونو سنة ولا جوجي توبان كونو سنة حساب تاكل دماني دون تبو يدي أفرتن كونو سنة يا سيد الله تاجنان دونا توبان كونو سنة حساب تاكل دمان دون نين عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يدي نجونا ورب الكعبة كعبة ربك يا كل دارته وان بدبادني بودي وان نبض قلبي بودي مرقا ابو النبي يقول صونغو سيادو كل نبض قشي بو كيدي بلي شك وعد وكريم إلهي وكريم حدو دونو اسكا كايا عفين بودي معيد باسكا قبصان يسيبو يدي وكريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك مدى مجرو هدو جرى نبو رسول كل أي ربي جيبوا قيامه الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مال انت عيد وكلا فعلين يسا مجرته لغة عربية لغة هذا الله يعني حاجة ميدكتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نار تيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نار تاقاشان كسميست ابو نبي يقول قاشان كي يشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولين نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة ابو نبي يقول تمر جيح تمر إني كان هلين بو نبي يقول ياي هذا الكون أكسن هكو هذا كلمة ونكسن كو هذا سبحان الله وكلمة ونكسن الحمد لله وكلمة ونكسن أمر بالمعروف وكلمة ونكسن ذكرك وكلمة ونكسن استغفرت وكلمة ونكسن لا إله إلا الله وكلمة ونكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك عضو الشيكتا وكلمة ونكسن منكر كوضو مدى كريبتانا وكلمة ونكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي يقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتري مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيتري يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان قفوا البباردي سيبا كتا الله واسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس ما لسدح سعونيا هوا لسدح سعونيا قفك كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفك أكسعود مالنتاس من نبا ما قبض با من نقبا ما بإيجي يا أبو رسول كل هم بقى مجربوا يدي هورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنة بالي نكاس دولك مويان عرك ما إيجن مركز الله يقولين مروق تم بدن وما حيبا لقولي ما دتكن وحي أوجان بعد أديكو أوجاتي باللقيولي دتك أنيجا وحبيجا ما قاليني تيدا أنيجو أنك هلا يا وحن النيش يا الموت في عنقي جريدي بقرط إيسودان والقبر بيتي هل كان لا يديك ينا وقبر جويان والقيامة موقفي ماشى اللي يجوجني أنا وبنك قيامة ويان وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا وجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي جاي وحي يقول سمين دوننا كما ورقبي بود عنكو انت سو مرحلة نيك أي سوق أي سو إسقوا هذا قصله حق قصله بيري أنو تيدا كورما يا بودي انت نولا هاي
oohin baa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi. maanta waa adduunyo, baritoola waa aakhiro weeyaan. camalkaagaad la dhaadhacaysaa, maxaad wadataa, maxaan wataa anigu maanta. almu'miniin caaisha radia allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nabigeennu ka warramay calayhi salaatu wassalaam ayay tidhi yaa rasuul allah, maalinka sara joogga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi. man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi 50 kun oo sannadood. markaa buu nebigu yidhi caaisha, qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka intaad tukataan in laag baa banka qiyaamo looga dhigi buu yidhi. inteen tukanay salaadii maqrib 3 daqiiqo, 12 daqiiqo, 13 daqiiqo. muuminka iimaanka leh ee adduunyadan intuu jooga ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa. hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiraduu eega, dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiraduu eega, meeshuu marayo aakhiraduu eegaya. meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa. hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya ha dhowtoole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadayo. dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaalo aakhiradeeda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinaya oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay. mu'minku uu xisaabtamaya. muuminka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay ku soo caabuday salaadaa yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaamo looga dhigaya. dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka. aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysaa, noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa. waxaad doonta ku hadli kari maysid, waxaad doonta eegi kari maysid, waxaad doonta cuni kari maysid, sidaad doonta u noolaan kari maysid. waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya, wanaag oo dhanna kuu diraaya.